kufsaday xero barakac ku taala duleedka magaalada Jowhar. Faadima Cabdullaahi Gooni ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. dhacdadan oo aad looga hadalhayo degmada Jowhar ayaa la sheegay in haweeney ku nooleed xero barakac ku taala magaalada Jowhar maalnimadii shalay ahayd kufsi loogu geystay haweenadas oo da'deeda lagu sheegay 85 sano jir lagu kufsaday xero barakac ku taala duleedka degmada Jowhar. gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed oo la hadlay ayaa sheegay in dad loo soo qabqabtay dhacdadaasi lagu eedeeyay. gudoomiyaha ayaana meesha ka saaray in kufsiga loo geystay haweeneydaasi ay ku lug lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. runtii waa ka xumahay maxaan ku raayay dhacdadaas inay dhacdo waqti jaahiliya soo gudbidana maxaa deejiyay way dhacday asal yeeshee aadan ugu xumahay gudoomiyahan gacantan lagu soo dhawey nimankii asal yeeshee waxaa gacan weyn gudoomiyaha xaafadda horseed aad u mahadsan yahaan leeyahay taasi waxa waaye mugu dabaabi karin hebelaa ka dambeeyey iyo ciidanaha ka dambeeyey iyo mas-uulaha ka dambeeyey aniga ma dhihi karo waxa waaye qaldaadka bini aadamku uu galay ka mid tahay haddana ciidanka dawladda ka dambeeyey dambi waaye laftirkeeda dambi karo aad magaysi adii laftirkaad abuuraysid waaye aan qabaan dhacdo kasto ee dhacdo xanuunkeeda ay leedahay tanna waxa waaye tan ugu dambaysiyo aan dareemayno xanuunkeeda zaa'idka weliba dareemayno waaye haweeney intaas magacdaadeeda gaarsiisan tahay in la kufsado aadan uga xumahay mar labaad iyo mar saddexaad aan kugu soo celinaa laakiin waxaan kuu sheegaa markuu magacaysi shaksi uu wax sameeyo ama shaksiyaad waxay sameeyaan in lagu cambaareeyo maamul ama ciidan lagu cambaareeyo aadan uga xumahay ciidanskeeda waa cambaareynaa idin. dhacdadan ayaa ah mid dhif iyo naadir ku ah dalka Soomaaliya iyadoo aad looga hadalayo guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle.